اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ارday waxay noo socday chapter keeni trigonometry oo chapter aad iskaga fududaha waxaynu soconaa lesson-kiisii shanaad ayaynu bilaabaynaa trigonometric equations baan bilaabaynaa trigonometric equations lesson 4 chapter 1 waxaynu bilaabaynaa waxa loo yaqaan trigonometriga oo aha cabirka xaglaha geesaha sida xagal ayuu noo haasayna hore u soo baranay lesson 5 waxaan ku baranaynaa lesson 5 ka trigonometric equations. Trigonometry equations can be solved by using techniques of algebraic equations. Inaga oo isticmaalayna xeerarkii techniqueskii hababkii trigonometry equationadii algebrada bayna equationada trigonometry-gana xalinayna iska ilaali waaxyihii kaliya waaxyihiiba aad u shaqaynaya to find angles. You need, yes, you must find angles in different quadrants. حقلها واحيها كردون وإن توصارتها كو يبرسيك by using the following formula أرضي ولا تحدد مركان حقل واحد اللي بعد هذا كو يلاحظه وحلا وحلا تيتا لقيت بقول يسديتا لقيت شري ألفا مركان حقل واحد سدحات هذا كو يلاحظه وحلا وحلا تيتا لقيت بقول يسديتا لقيت شري تيت ألفا مركان حقل واحد أفراد هذا كو يلاحظه سدح بقول يلحظه لقيت شري ألفا adeerow haddaanad saddexdaa shay garan waaxda koobaad iyada tiita iyo alfa isleeg caawisada iyo waxa isleeg waaxda saddexdaasi waa markaan raadi ku ilaahdo waaxda labaad waaxda saddexaad waaxda afraad xagal waaxda afraada markaan raadi ku waaxda saddex labaada tiita laga jiray 180 inta 180 ka ka dhiman saddexaad marka raadi karo inta 180 ka dheeraadka ku ah 180 lagu daray alfa saddex marka raadi karo xagal waaxda afraada 360 laga jaray alfa equationada li fiirso maxaad haysataa we have here waxaad haysataa bari fiirseeg kow waxaad haysataa sin theta waxay kula mid tahay half war xaglihii baa la inaga rabaa laba su'aalood isweydii وبلا ساينكو هلكا ايغو لبدي وحيودي ساينكو بلا سها maxay ahayd koobaad iyo labaad sida ugu horqoro koobaad iyo labaad ta koobaad baad helay ta labaadna maxaad ku raadin qaacidada halka aan kuugu qoray 180 laga jaray tiita baa labaadka lagu helaa be careful maxaan oranayaa tiita waxay ila mid tahay sin inverse half maskaxdaada isweydii cashirkii hore in soo dhigay common angle-ka goormuu sinku half ka lahaa markay xagashu 30 ka tahay I will say tiita waxay ila mid tahay 30 bay tiita ila mid this is principal value waa qiimihii koobaad ee 30 ka qiimaha labaad ee 30 kale waxaan ku helayaa qaacidada koobaad waa waaxda labaad maxaan ku helayaa ta waaxda labaadii fiirseeg tiita maxay ila mid tahay 180 laga jaray 30kii bali fiirseeg hore soo saartay tiita waxay ila mid tahay 150 secondary value war bareek very simple yaa iskale haafka macnaheedu xagasha 30 iyo xagasha 150 xagasha 30 baan helay ta 150 qaacidada iga caawisay iyo labadii waxyoodu sayinku balaaska ahaa koobaad iyo labaadkiiba iga caawiyay ardayo taxadir common angle-kii iyo waxa ku caawinaya science-kii haddaanad labadaa garan weligaa garan maysid please be careful maxaad haysataa tusaalaha labaadii fiirso be careful here waxa weeye waxaad haysataa halka cos theta waxay kula mid tahay half cos theta waxay kula mid tahay half isweydii adeerow taxadir goormuu cosku balaasahaa bal haddeeg koobaad iyo afraad koobaad iyo afraad sida ugu horqoro koobaad iyo afraad be careful maxaan isweydiiyaa goormuu cosku half ahaa markaan koska joogno yaa halfka iska lahaa isweydii cashirkii common angle-ka waa inaad ku noqotaa be careful I will say theta waxay ila mid tahay cos inverse half theta waxay ila mid tahay 60 principal value qiimihii koobaad halfka xagasha 60 baa iska lahayd markaan joogno koska way fiirso adeerow taxadir
maxaan ku yidhi waaxda kale waa ta afraad maxaa lagu helayay ta afraad hadeertooda ay ku sheegay tiita waxa lagu helaa 360 laga jaray tii hore ee soo saaratay oo 60kiya war bareeg waa alfa waa caawisa waa tiita waana alfa this is tiita maxay ilamitay 300 bay ilamitay be careful secondary value macnaheedu koosku markuu haaf yahay labada xaqlood ba iska leeyahay 60 iyo 300 principal value qiimaha koobaad iyo secondary value adeerow taxadir maxaad haysataa tusaalaha saddexaad tangent muxuu ila mid yahay radical 3 adeerow waa maxay tangent balaasa isweydii halkuu tangent ku balaasaha hore maxaan kugu soo sheegay odd iyo even odd ku balaasaha koobaad iyo muxuu balaasaha saddexaad yes handana waxaad isweydiisaa tangentku goormuu ahaa xagashu maxay ahayd markuu radical 3 leeka common angle-kii radical 3ga tangentku wuxuu leekaa 60 common angle-ka waxaan soo dhigayay si aad equations-kan uga shaqayn karto taxadir badan halka muuji maxaan oranayaa theta waxay ilamitay tan inverse radical 3 theta waxay ilamitay 60 kaasi marna waa caawiso marna waa waaxda koobaad waan waaxda saddexaad maxaa lagu helaa saddexaadka maxaa lagu helaa tiita waxay ilamitay 180 lagu daray wixii ku soo baxay oo alfa ah tiita maxay ilamitay 180 lagu daray 60 tiita waxay ilamitay 240 principal value secondary value 240 ka fiirseeg secondary value-gaaga arday walowba waxaan kugula dardaarmayaa waaxyaha uu balaasaha ama maynisaha mid kasta iyo common angle-kii uu lahaa oo dib u celiso labadaas markasta waxa laga rabo waxaad haysataa halkan fiirseeg equation ka bari fiirso this is very simple halka maxaad ku haysataa equation ka bari fiirso another equation waxa kale oo haysataa sin theta waxay kula mid tahay radical 3 sin theta waxay kula mid tahay radical 3 this is sin theta waxay kula mid tahay radical 3 divided by 2 adeerow waxaad isweydiisaa ma sin balasa mise waa sin minus sin balasa halkeebuu sin ku balaasaha wuxuu balaasaha koobaad iyo labaad buu balaasaha this is 1 iyo 2 buu balaasaha good handana waxaad isweydiisaa sinku goormuu ahaa radical 3 divided by 2 xagashu markay maxay tahay ayuu radical 3 divided by 2 adeerow xaqiiqatan been ku sheegi maayo hadaanad waaxyihii koobaadeen ku soo sheegay iyo common angle-kii aanad xabisanayn trigonometry kuma shaqayn karo ku noqo ku dadaal common angle-skii iyo wax loo yaqaan waaxyihii ay balaaska iyo mayniska hayeen si degan jadwalo waxyaabo badan baa ku soo sheegay waa chapter fudud oo xafidaad badan kaaga baahan meelaha qaarkood good maxaan oranayaa theta maxay ila mid tahay sin inverse radical 3 divided by 2 theta waxay ila mid tahay 60 this is principal value qiimihii koobaad waan waaxda labaad maxaa lagu helaa waaxda labaad maxaa lagu helaa theta waxa lagu helaa 180 laga jaray theta 180 laga jaray alpha tani waa alpha sidoo kale 60 kali theta waxay la mid tahay 180 laga jaray 60 theta waxay ila mid tahay 120 this is secondary value 120 ayaa 60 iyo 120 principal value iyo secondary value maxaad haysataa halka taxadir badan halka muuji equation kaasi si taxadir badan oo degan fiirso halka baa waxaad haysataa fiirso sin square plus sin x cos x arday walowba adeeru si taxadir badan la fiirso equation markuu nooca ku yahay mid tibix isku weeran iyo tibix kala ad haysato adeeru tibixda isku weeran inta ay tahay baa laga wada saaraa maxaan banaanka uga saaraa sin banaanka uga saar sin x halka waxa ku haray sin x haye plus cos x baa ku haray equal 0 sin x baa markarigii leeg 0 or sin x plus cos x ayaa ileeg 0 waxaan kugula tartaarmayaa xagan hore imisa jeer buu say ku 0 leeka waan ku soo dhigay waxa loo yaqaan quadrantal angle-ka muxuu ahaa 180
zero boqol iyo siddeetan iyo saddex boqol iyo lixdan saddex jeer buu zero leeka zero boqol iyo siddeetan saddex boqol iyo lixdan taybilkeennii ahaa quadrantal angalka ayuu ku jira fiirso be careful wargeystani maxaad haysataa sin x plus cos x equals 0 mar alla markaad haysato laba faction oo kala duwan oo sin iyo cos ah maxaa la sameeyaa bal hadda halka fiirsi eeg maxaa la sameeyaa faction kala duwan oo sin iyo cos markaad haysato maxaa la yeeri karaa adeero waxa kula dardaarmaya gees walba cos baa loo wada qaybiyaa si aad taanjadu hesho waayo laba faction oo kala duwan haday isleegta ku jiraan kama shaqayn kartid waa inuu wada sin ama wada taanjad ama wada cos ku noqda dhinac walba cos u qaybi maxaanu qaybi cos theta u qaybi xakan cos x xakanna cos x u qaybi xakanna cos x sin loo qaybiye cos waa taanjad plus 1 equals 0 yaa wareejiya 1 ka wareeji tan x waxay ila mitahay -1 sida halka kaaga muuqata adeerow taxadir tan x waxay kula mitahay waxaan kugula dardaarmaya please be careful taanjadku goormo maynisaha waaxda labaad iyo waaxda afraad buu taanjadku maynisaa be careful markanta maxaa la sameeyaa ka tag mayniska taantiita waxay la mitahay taanjad inferus wan soo saaro waa 45 waa labaadkii afraadkiina wixii qaacidada lagu heliyay baad sameyn barada adeero halka eeg tiita waxay ila mitahay tangent inferus haye iyo fiirsi eeg this is tangent inferus 1 tiita waxay ila mitahay 45 lama rabo 45 tanadeero lama rabo inagu 45tani waa koobaad inagu labaad iyo afraad baa rabnaa adeero bal taxadir fiirsi eeg 45tani wuxuu ka caawinayaa inaad kuwaagii hesho maxaan ku helaa labaadka maxaan ku helaa labaadka waxaan ku helayaa tiita waxaan ku helaa 180 laga jaray alfadii soo baxday tiita waa 180 laga jaray 45 tiita waa 135 sidaas ku soo baxay sidee buu ku soo baxay 315 kani tiita maxay ila mitahay afraadka 360 laga jaray tiita waxay ila mitahay 360 laga jaray 45 tiita waxay ila mitahay 315 sidaas ku soo baxay taxadir uma baahnid 45 tani waa caawiso waxay ka caawinaysaa inaad labadaadii waaxyood hesho labaad iyo afraadkii labaadkana 180 ka jar afraadkana 360 ka jar saddexaadkana 180 ku dar war maxaa la yiraahdaa labaad markaad raadinayso 180 waxaad haysatid ka jar labaadka saddexaadka 180 waxaad haysatid ku dar afraadkana 360 waxaad haysatid ka jar very simple halka waxaad haysataa equation ka fiirso equationadani waa waxa aynu aad ugu baahanahay israyn baa soo galaysa iyo wax kasta war bar waxaad haysataa halka eeg we have here maxaad haysataa fiirso eeg 3 sin square x minus 17 sin x plus 10 waxay ila mitahay 0 adeero taxadir halka maxaad haysataa adeero equation ka markaad haysato maxaa la sameeyaa we have this one mid walba meeshiisu inoogu iman doonaa bal hadda waxaad haysatay equation ka fiirso maxaad sameynaysaa adeero sin baa ku wada jira dhamaantii bedel let sin x inuu kula mid yahay way meel kasta oo sin ku jiro intaad ka saarto way ku bedelo maxaan yeeli karaa 3y square minus 17y balaastan waxay ila mid tahay 0 haye israyntaadii saddexda tobanka ku dhifa waa 30 laba tiro oo marka la isku dhifto balaa 30 marka la isku darana 17 waa 15 iyo laba weey maxaan yeeli karaa this is 3y square minus 15y minus 2y balaastan equal 0 labadan gees isku qabo labadana gees isku qabo israyntii la yaqaan 3y ka saar xagan maxaa ii soo haray y minus haye 5 minus 1 ka saar minus 2 ka saar xagana y minus 5 markaan minus ka saaro calaamadii guduhu haday balaas ahayd minus bay noqon haday minus ayna balaas sida halka kaaga muuqata equal 0 3y minus 2 iyo y minus 5 equal 0 3y minus 2 waxay ila mitay 0 or y minus 5 waxay ila mitay 0 y waxay ila mitahay 2 divided by 3 y waxay ila mitahay 5 halka marka joogto maxaad yeelaysaa fiirsi eeg
sin kii ku bedelo sin x waxay ila mid tahay 2 divided by 3 ayay ila mid tahay xaqana sin waxay ila mid tahay sin x maxay ila mid tahay 5 xaqani waa impossible because of what hore maxaan kuugu sheegay qiimaha u sareeya ee sin gaara waa +1 qiimaha u hooseeya ee sin gaarana waa -1 ma gaara shar waa impossible geesta kala maxaad haysataa adeero bal ii fiirsi eeg sin theta maxay kula mid tahay 2 divided by 3 maxaa la yeerayaa halka ii fiirsi eeg sin theta x na waxay kula mid tahay sin inverse 2 divided by 3 x na waxay ila mid tahay 42 waa waaxdii koobaad waa sin balasa waa waaxdii koobaad sin ku wuxuu balaasaha waaxda koobaad iyo waaxda labaad koobaadkii baan helay labaadka inta aad haysata ka jar 180 maxaan ku helaa theta waxay ila mid tahay 180 laga jaray alfa 180 laga jaray alfa theta waxay ila mid tahay 180 laga jaray 42 theta waa 138 very simple way wax aad u fudud waa biyo very simple waxaad haysataa halkan fiirsi eeg we have here tusaalaha labaad fiirso waa la mid isaguna israin buu noqonayaa we have here waxaad haysataa bal fiirsi eeg we have here isagana waxaad haysataa equations are very simple equationsku waxay ku xidhan yihiin calaamadihii iyo common angleski 2 sin square theta minus way +1 minus 3 sin theta waxay kula mid tahay 0 waxa saadaysataa adeero maxaan sameeyaa habee maxay ii noqonaysaa 2 sin square theta minus 3 sin theta +1 equal 0 letna iyadna sin theta inay kula mid tahay y waa 2y square minus 3y +1 equal 0 labada halka hore ku dhifo labada maxay ii noqotay laba tiro oo marka la isku daro saddexa marka la isku dhiftana laba waa -1 iyo -2 this is -1 iyo -2 waa 2y square -2y -y haye +1 equal 0 labadan gees 2y ka saar xaqan y -1 ka saar y -1 equal 0 waray ka say 2y -1 iyo y -1 equal 0 2y -1 waxa la mid 0 or halkani fiirseeg y -1 waxay kula mid 0 y waxay kula mid tahay half y waxay ila mid tahay 1 maxaad haysataa sin kii ku bedelo sin theta waxay ila mid tahay half sin theta waxay ila mid tahay hal lagu sheegi maayo goormu sin ku half aha waa sin balasa iyo sin balasa goormu sin ku half aha wuxuu half aha markay xagasho 30 tahay halka bataxdi fiirseeg waa waaxdii koobaad tii labaadna 30 ka jar 180 oo 150 theta waxay kula mid tahay sin inverse half theta waxay ila mid tahay 30 theta waxay ila mid tahay 180 laga jaray alpha theta waxay ila mid tahay 180 laga jaray 30 theta waxay ila mid tahay 150 geesta kale adeerow waa xaqlihii common angle waa xaqlihii quadrantal angle-kii goormu sin kuwan la mid aha markay xagasho 90 tahay 90 markay tahay theta maxay ila mid tahay sin inverse hal theta waxay ila mid tahay 90 very simple way that's very simple waxa haysataa halkan ee fiirsi eeg equation ka bari fiirsi eeg equationada exercise ka ee fiirso adeero maxaad xalinaysaa solve the following equations 2 sin theta -1 equal 0 cos theta plus radical 2 adeero 1 ka wareeji gees walba laba u qayb xabada koowaad sin theta half ay ku leegtay maanta dhamma ka shaqeynay cos theta plus radical 2 waxay ku leemtay minus cos theta da soo wareeji 2 cos theta waxay ku leemtay minus radical 2 buu noqonayaa 3 tan square waxay ku leemtay -1 haye sin theta laga jaray radical 2 wuxuu ku leemday minus sin theta 2 sin square x minus sin x minus 1 wuxuu leemday 0 waa isreeb buu kaas ka rabaa sin ka ku bedelo y ama xarafka aad jeceshay ku bedelo waaye qaybtaas waa taas waxaad haysataa ee fiirsi ee halkan we have here 2 radical 2 cos theta minus 1 equal 0 2 cos theta 2 cos x plus 1 equal 0 4 sin square minus 2 equal 0 3 sin x waxay kula mid tahay sin x plus 1 soo wareeji 3 sin x ka waa 2 sin x 3 sin x iyo sin x ka jar waa xarafka ay
2 sin x baa hal kula mid dhinac walba laba u qayb sin x half bay la mid tahay 2 cos square minus sin x equals 0 cos square ka bedel 1 minus sin square ku bedel sin x square waxay kula mid tahay 3 cos square labadoodaba dhinac walba cos square u qayb tangent square bay kula mid noqonaysaa sin square wuxuu la mid yahay 1 divided by 4 way sin square halkaas waa ka qarsoon tahay waxay kula mid tahay 1 divided by 4 very simple iska ilaali waxaad ku noqotaa common angle kii yaa lahaa waxaan xagashi iyo waaxii kala duwan ku noqo aad iyo aad baad u mahadsantihiin cashirkeena halkaas inoogu dhamaaday equationsku waa inaad ka taxadirtaan be careful please mahadsanidin guul baan idin rajaynayaa markasta